badan wiil waxay iska dhigayaan kuwa xarig ku kala jiidaya wadada dhexdeeda shakhsigan gaariga wada ayayna ka yaabsadeen isagu u maleeyay run. These kids acting like they pulling a rope across the street. Look at it, they stopping cars, guys. Stop, because they think they pulling a rope across the street. Yeah, to get out and look. sidaan oo kale weli ma kugu dhacday? qoyskan gaari ayay ka soo degeen. hooyadii markii hore meel nadiif ah ayay martay, laakiin gabadha yar iyo iyada kadib maxaa ku dhacay? wiilkan yar waxa uu sameystay wado uu kaga cararo waalidkii. Judah, get back here. Time to go to bed. Get back here. Judah. You know what? waxaan u maleynayaa shakhsigan aniga uun baa ka fulaysan, xitaa waxa uu gaaray heer uu miir daboolmo. Okay, this isn't so baby. It was just little bad. But still. wiilkan yar iyo maxaa kala qabsaday geedkan qashinka lagu aruuriyo. eygan si fiican ayuu u yaqaanaa sida wax uu cuno u raadsado. xayawaankan caadi maahan, waaba diidayaa si dadkii oo kale in laga qaado bombalaha. Toy Stitch, it's the dogs. It's Mojo's. Let me have it. Let me have it. Give it to me. Give it to me. Give it. Let me have it. Give it to mommy. Yes. Give it to me. Let me have it. Give it. Give it to mommy. maxaad is leedahay gaarigan? ma soo socdaa mise waa sii socdaa? There's the brake lights. They put it in red lights. Oh my goodness, blinking. Let's get him turning. Yeah. Look at that car. bisadan waxay isku maskiininayso, waxa ay rabtaa in ay qaadato hilibka iyadoo aan la dareemin. Bắt đi về phân nữa. Tao bấm một mình bấm cho mỏi luôn tay rồi. sanab miyaa mise waa qof ma garanayo, laakiin waxaan u malaynayaa inuu qof yahay. si kastaba ha ahaatee caadi maahan sida uu iskaga dhigay, sida qofku ordaya meel ay ka dhacayso dabeel zaa'id ah. dadka qaar aad ayay u dhib badan yihiin, ninkan isagu hurdaya ayay ka naxsadeen. waaw, gaarigan isagoo socda ayaa lugtii dambe ka furatay,
waa alla mahadii hadduusan qof wax ku noqon. ninkan waxa uu islahaa hoos kala bax, laakiin meeshii ayuu qarribay. booliisku waxay isku dayayaan in xayawaanadan gawaaridu wax u geysan. waxaan u malaynayaa haweeneydan in ay damacsaneed in ay wax ka xaddo meesha, laakiin eeyaha ayaan u ogolaan in ay mar kale soo gasho. goolhayahan caadi maahan, laakiin waxaan u malaynayaa in jug badan ay soo gaartay. aaladan cajiibka waxay awood u leedahay inay dhulka ka soo saarato geedaha jiridooda. ka waran wax aad waqti badan ku bixinaysay oo hal mar kaa daatay. gabadhan yar sawirkan ay isku keentay, markii ay soo bandhigi rabtana waa ka daatay. fiiri muuqaalkan aadka u qurux badan oo aad ku arkayso qorax sii dhacaysa. Heading back into Newport after a day of crabbing, and this is what we get. You know what they say, red sky at night, sailor's delight. waxaan u malaynayaa markaad aragtay libaaxa ku soo ordaya ninkan in aad naxday. feeryahankan waxa uuna barayaa haddii uu qof dhuunta kaa qabto sidii aad iskaga fujin lahayd. maxaad samayn lahayd haddii aad aragto matoor diyaarad aad saaran tahay oo sidaan ah? maanta waa naga intaa. waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen. hana hilmaamin inaad la garayso muuqaalka, subscribe na dhahdo channelka Maanta Plus. muuqaalka xiga ayaa inoo balana. assalaamu calaykum.